بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي على سود وهذا ومركلة إيو تحنيه وذا شيء كيسيدنا على بوحان هل كان كم ارتقاده دتك له هبدا يا لابوركا إيو سيدو كله أقونتا أي بلشدو وبهانتاي أما سايسن كمار مكرين intaas waxaa sii dheer dadka haya sooyaalka ama taariikhda bulshada sidoo kale waxtarka u leh toddobaadkan waxaa marti ii ah saaxiibkay Bisle Xasan Maxamed oo aan kala sheekaysan doono arrimo la xiriira hibada dadka qoslinta maadaama uu dhankaas wax ka qoray sidoo kalena uu dhalinyarada ku dhiirigeliyo dadka hibada u leh dhankaas in ay isa soo saaraan isla mar ahaantaana hibadooda ay bulshada uga faa'iideeyaan Bisle soo dhaw farxad bay ii tahay barnaamijka inaad maanta marti igu tahay wadaaw Ibrahim aad u maasantahay Ibrahim nolosha abwaankayga maanta wax iska weydiin doonaa dhinacan hibada dadka qoslinta fursadaha ay heli karaan dhalinyarada iyo sida ay tahay inay uga faa'iideystaan dabcan inta aanan dhankaas aadin horta waxyaabahan qosolka ama kaftanka la xiriira adigu laftigaagu buugaag ayaad ka qortay waliba bulshada aad runtii ugu dhaxbaahay labadaas buug hal buug waa la gartay ilaa laba buug inaad ka qorto dhankaas maxaa kugu dhaliyay way fududahay jawaabta labadaas buug hadda kii saddexaad soo socdo oo isna kaftana oo Bisle Jokes 3 haye soo socdo marka wax kale iguma dhalin in buuglan kala gooyo ma faad waa gartay marka dadka uu kiskisiyay inay hal mar dalqaan diiday hay waa dabcan waxay markii la qayb laga dhigo xiisay si yeelan doonaan waa gartay kaftanadaas xagee baad ku salaysan badankooda ma dhinacii dhalinyarada arrimihii qoyska ma dhankeed la aaday nee horta inta badan maxaa la yiraahdaa waxay ku salaysan yihiin ama ay u badan yihiin yani aniga ahaan maadaama aan nin ahay dabcan waxaan ku fooganahay yani ama dareenkayga inta badan oo yani ninka dareenkiisa wuxuu ku foogayaa naag dareenkeedana nin sax soo inta badan horta dumarka aan joogaas ay u badan yahay inkastoo dad badan ah gabdhaha qaarkood waxay yiraahdeen ma ragga joog ka sameeysid marka waxaan yiraahdaa walaal aniga u leeyahay nin ma shugaansan waa loogu dhankaas gabdhaha loogu talagalay aniga u leeyahay nin ma shugaansan naaga aqaana sida aan macnaheedu marka sida loo shugaansado soo marka inta badan laakiin nolosha oo dhan yani meel kasto ay ka soo gasho dhaqanka xataa waxa dhan way ku jiraan markaan fiirino dabcan waxaad waliba aad dhihi kartaa dhinaca gabdhaha waxa u hadli karta Naciima Joker Soomaa iyo dad badan oo dabcan ka qosliya aad iyo aad ayaga ragga wax ka sameey karaan oo waxa la yiri waxa sheeko waxa jirtay nakruuma Allah naxariistay ay sameysay aan ka maqlay inay sameysay kala ma qaanan oo ragga ay ku dacaydeenayso odaybaa islaanta wuxuu kala daalay amal habeenka ay baahanta ma ii sheegtid gabdhaha wax ka xishoonayaan mogtahay marka waxay tiraad gudub oodka aan sameeynaano saa ii fahamtid ninkan balaay iskiriya oodka habeenka sameeyo dhahay macnadan dabka kama dejinanbo habeenka dambe oodka aan banacay naga waa gartay marka dabcan way jiraan aad ugu fiican yihiin dad badan oo ka sameey kara way jiraan laakiin aniga markay imaado nin ma isarkin mogtahay wakaasa waayahay labada buug ee aad qortay ee kala ah kaftanka Bisle iyo la qosul Bisle maanta qofka aanan akhrin laakiin raba xogta ku dhex jirta inuu ogaado buugaagtaasi maxay ku kala duwan yihiin hor sida caadiga xogku ma kala duwana waa sax waxa ay ku kala duwan yihiin ma jiraan laakiin hadda si fudud u sheego waxay ku kala duwan yihiin kalarka buuga koodhe waa gartay cabarka buuga ay ku kala duwan yihiin inta sheeko ku jirto يعني midna waxa ku jirta 240 sheeko midna 200 sheeko ku jirto laakiin macnaheedu ma in sheekada inta ku qornaa inta ku qoran tahay macnaha sheekadii qorneed ilaa iyo sheeko maxaa la yiraahdaa kun sheeko ku dhawaad horta marka hore waxaan rabay inaan sameeyo buug ugu weyn ee ah ila qosol ee af Soomaali ku qoran marka waxaan islahay ilaa 1500 gaarsiyo midaan u maleynaya ma inuu qoraan maalin meel ku arkay
waxaygan kala googoosto marka laba kun ku dhawaad raacimidaan hay mar marka keygilan kala googoosto waa gartay ma la dhihi karaa sheekooyinka ku jira labadaas buug la qosol bisle iyo kaftanka bisle waxay u badan yihiin xilladii burburka mise horta buugaas labadaas buug weliba midka hore kaftanka bisle wuxuu u badan yahay wixii ilminimadeedii aan xoogaa xifdiyey dhalinyarada markaan soo aqaliyeysanay markaan aqaliyeysanayna waqtiyada burburkay ahayd marka sheeko oo waxaa ku jirto waalan oo dhowr sheeko mooryaannimada ka hadlaysaa ku jirto mid nin maxaa la yidhaahdaa mooryaan wuxuu sameynayaa dhalinyarada jimcada markay dadka soo qaangaaraan waxba lama yihin moogtahay inay jimcada qayilaan intay lacag soo aruursadaan ay bilaabeen loon xariif mooryaan hurdo ka soo kacay akhyaartan ciyaal maamada oo meel ku qaylay soo arkay wuxuu ku yidhi wuxuu is yidhahdaa nimankaan u sheekaysid jaadka laamaaba ugu cuni kartaaba waagaasna sheekada ugu badan ama ugu fiican yani scenaariyada markaas jirta waxay aheeday sheeko mooryaannimada ninkan uu imaada meesha hurta xarfaanay ilaa meel dhowr laana loo dhiibay dhowrka laan marka si uu sheekada u sii wato meesha u fadhiyo sheeko galano wuxuu yidhi saakay hurduuna ka soo kaca moogtaa saakayaan gaarigii hebelaan soo qaadanay tiknikoo soo qaatay waa xabada naga fakatay intay ku dhacday qolaadna xabadaysay waa lugaa qaraxday intaan gaari jiibo ahay xabada hebel ku ridnaysay bana mid ku dhufanay maxaa la yiraahdaa intay ka baxday aduu balaayo islaan caana gadiisaan dul marnay qowlo mooryaan aan dilnay waxbaan dhacnay soo dhiig iyo wax ugu dhex jiray rafaad markii dambe lugaa naga qaraxdo yirano waa bedelanay gaariga ju gaartay garaashaan geynay marka aan garaashka geynay mid sheekada walaacsanay oo sheekada ku wareersanay wuxuu dhahay saaxiibo garaash ma geysinaa hanugu soo bixin meeshis ha ku jiro waa jaadka balasiirada marka sheekooyin badan oo waa ku jiraan oo waqtiyada burburka iyo wixii xillidaas way ka buuxaan haddii aan ku yiraahdo sheeko kale oo labadaas buug ku jirto iyaduna aad is leedahay bulshada dabcan abateed ay buugaas ku akhriyaan ayay u furaysaa bal noo soo xulo niyow horta sheeko mar walba sheegaa jirto sheekadaas waxaa waaye maadaama inta badan facebook aan ku dhex jirno sheeko facebook ka dhacdo waaye oo nin aa ii sheekiya saaxiibo aan nahayo wuxuu yidhi gabaraan ka helo yidhi aadaan uga helay facebooka والله لقوا في هذا وقرب أنت ما شاء الله ذيك typical Somali شكانسي أو Somali ده والله لو يرى هذا وقرب أنت واشيد أنت ما شاء الله وما حسنت يا حبان شو جاي وآخر صورة إنه سين بس يسوي جواب وحاي يصير مركا فرينت هذا مرة ما يسترناه ما بدي مسترتي بغفتا وندير وإني آخر شيء خفية وكاه هلا سوى ركتها وآخر صورة هذا صح ما يسوي جواب way aamusantahay wali haye وما هذيش دولالي واخرس إيمن سو جوابين أبا إلى هذا النوع أدو حيري إلا شن مسج أو دري هل كاسبين واخرس أنا وحناقصن أو ناكتان بلوغ مسارتا مسكنا أفتح صدايا أنا صباح دي سوكا عوده واسك ساحد الصباح دي سوكاعي صباح دي أنا فيري أنا إسلا فيري مكوسو جوابتي فيسبوك أنكو أركو يرى إيدو صغرتي الحمد لله إلهي وأنا كلا كيني وأي كلا كيني أني عنو جيجن وفي عنها ما شاء الله واقرتي وحير ما أنت سكدي بقبلي على هذا يسوي جوابويش وحين سدي يجري من ناوينا ليس واقرتي وطبعا نكاز بس 10 وكبرتي مركا لكن حتاجين قبل إلى لويس وين ليس فول كجرتبه طبعا وواحد تاس كينيس إن قف فول ku jira ama isbitaal ku jira oo qad isaga jiro aaladihiya waqtiga horumarka keenaya ama aaladihii sida fudud dadku u helayeen bisle waxaad si fiican ma aragtay aqoon ugu leedahay iyo way aragnimo sidoo kale saaxadan dadka qoslinta ama waxaad runtii kala xuli kartaa dadka hibada dadka qoslinta leh qofku markuu dad u sheekaynayo sheeko kaftan ah ama sheeko ila qosol ah sheekadaas si ay xiiso u yeelato
ilaa intee la gaarsiin karaa ilaa intee la gaarsiin karaa oo ah dhirar ahaan qoraal markii la qorayo Soomaa qoraal ahaan ama sheegisba intee la ekaan karto horta wax walba waxay ku fiican yihiin horta inay kooban yihiin wixii haddaysan qiso ahayn aad ka sheekeynayso markay taa qiso aad ka sheekeynayso oo taagleynis leh oo midba mid kale ay kuu sii dhiibayso dabcan waa la dheeray karaa ama ha laga sheekeeyo ama maxaa la yiraahdaa ha laga sheekeeyo ama maxaa la yiraahdaa ha la qoro laakiin haddii oo meesha end point uu jiro symbol inay gaabnaataa ugu fiican soo koobno ala soo koobaa ugu fiican mid ugu fiican dadkana inta badan waxay jecel yihiin wax yar jecel yihiin aad iyo sheekooyinkan ama kaftanka ama masrax inta la soo istaago dadka looga qosliyo ama buugaag lagu qoro iyagoo tiro badan sida haddii aad samaysaba si guud markaan u fiirino imisay u qaybsamaan sheekooyinka ila qosolka ah ama sheekooyinka ila qosolka inta qaab ay u qaybsamaan horta sideedaba warkoo dhan marka laga hadlayo hadalka waxaa la yiraahdaa asigana laba u qaybsamaa labadaas waxaa waaye waxaa la yiraahdaa verbal communication iyo non verbal communication joogana maadaama warka uu kamid yahay isla jooga wuxuu leeyahay asoo verbal iyo asoo non verbal ah macnaha mid la hadlayo mid aan la hadlayno calaamada kaliya lagu hadlayo aad iyo aad markii taas laga yimaado marka labadaas luuqad oo midna aamusnaanta lagu muujiyo midna hadalka lagu muujiyo midna hadalka lagu sheego markii laga yimaado asiga inta badan wuxuu u qaybsamaa sida caadiga wax taagan wax soo socdo bis marka inta badan wax soo socdo maahane wax dhacay iyo wax tagay kaliya marka inta badan xawga la saaraa sababtoo ah wax soo socdo waxaa laga yaabaa dadka imaginationkooda inuu meeshaas jirin laakiin waxa xaaladda la joogo way fahmi karaan markaas xaalad tagtane dadku waxay xiiseynayaan maaqaan tagtada waxay dadku ku jecel yihiin aad iyo aad marka sideeda waxaa loo qaybiyaa asiga laftarkiisa sheekooyinka ugu qosolka badan waxaa la yiraahdaa true story la yiraahdo iyo waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa inkastoo ilaa 10 qayb la sheegaa laakiin inta ugu muhiimsan waxa waaye waxa la yiraahdaa true story oo qiso dhacday oo la yiraahdo iyo jooga oo saaxiib iyo saxaabtii lagu camirto markii uu life uu yahay oo kale in la yiraahdo saaxiibkii hebel lagu soo hol qabsado wixii kale oo iska maxaa la yiraahdaa xaaladaha markaas jirana waa laga sameyn karaa maxaa aas u ah marka sheekooyinkan kaftanka sheekooyinka kaftanka marka la sameynayo Soomaa sheekooyinka kaftanka marka la sameynayo horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye inaad ogtahay dadka la hadlaysid terminology-da isticmaalaysid waa in ay noqotaa mid ka gadmayso dadka la hadlaysid sababtoo ah luqadda aad ku gudbinaysid ayaa ka micno badan waxa ay sheegaysid marka waxa ugu muhiimsan oo asaas ku ah waxa waaye afka dadka aad kula hadlaysid yacni ereyada isticmaalaysid waa inay ahaadaan ereyo dadka xiiso u yeelay oo ka qoslin karo marka beeska ugu horeeya intaas waaye aad iyo aad dabcan ujeed ayaa ka dambeeya in sheekooyinkan bulsho loo soo gudbiyo ama qofku intuu masrax soo istaago uu dadka ka qosliyo ama in si kale ama qoraal ahaan uu dadka ugu soo gudbiyo ujeedka ka dambeeya maxay tahay in sheekooyinkan la qoro ama dadka loo soo gudbiyo horta ujeeddo gaar oo ka dambayso ma jirto marka laga yimaado sida caadiga madadaalada guud fanka kale waa iska madadaalo filmaanta waa iska madadaalo comedigan ama waa iska madadaalo ama hal qoro ama hal sheego stage laga sheego marka laakiin waxay ku xiran tahay hadba qofka soo gudbinayo ujeedada uu ka leeyahay ayay ku xiran tahay ha qof wuxuu arkaa fursad uu lacag ku sameyn karo qof wuxuu arkaa fursad waxaan ku noqon karo qofna wuxuu arkaa yani waxaas anigoo kale aadan uga helaa jooga aniga waxa lagu dacayeeyaa inta badan facebooka comment postigaaga laagta ugu horeysa isu saartaa waxaan ku yiraahdaa marka waxa aniga ka helin si inuu kugu soo qoraa
marka jooga hadduu aniga iga qoslin mar iyo laba iyo saddex maba soo qorabo aad iyo aad marka aniga aan ku qoslo waxaa yidhahdaa bal horta dadka kula dareemaan qosl laakiin qosolka Soomaalida wuxuu iska yahay dad oo waxa la yiri nin la yiraahdo hal labaasho oo dadkan comedianka ah buuga kaftanka bisleen ay tawana hordhacdaas ku qoran yahay aan maleynaa oo dadkan iska comedianka af Carabi ku shactareeya oo Soomaali ah waxa lagu yiri maxaa Soomaali ugu shactareeyeen weys sax wuxuu yiri inuu Soomaali wuxuu yiri hadda ka hor aan carabtan wax anoo iska sheekeynayo yiri oo niman caydeenayo yiri hebel markuu imaanay Soomaaliya meesh bulshooyinka la mari oo dhaxmaray waa la qoslo dhax shaakada noogu soo celay meel kasta markaan tagabo sax shaakada qatar ay noqoto dhahno meel kasta ka sheegi jiro dhah min wax iska caadi hebel meesha boorsada u dhaxmaray wax hadda lagu qoslo aniga igama muuqano dhah wuxuu dhahay marka nimanka aan la joogo carabtan u shactareeyo taasay bay isaga qoslayaan oo dhah qofka Soomaaliga laakiin libaaxa cunay hala harantisay geedo ka dhacay misaara madaxa looga dhuftay oo waara qis wax soo skarawa marka waxa ay ku xiran tahay macnaha Soomaalida dad si sahal loogu qosli kara maaha haddana ajir sheeko aan ka sameeyay jirto waxa la yiraahdaa nin qorrax taagan iyo nin qabooji faalla waaro sheekada waxay ku dhacday marka sheekada yani qaabkii u qorneeda wuxuu ahaa waxa yiri internet ma haysanin sheekay ugu soo dhacday waa qor telefoonka ku geedii sax waagaasna ma jirin moogtahay waqtiga aan soo qoray sheekadaas ma jirin telefoonka oo internetka kuma jirin oo wireless bas la isticmaalay marka internet igu ma jiro xafiisan galabta tago oo ragaan saxaabna hay leeyihiin ka soo gala internetka waa sugu way marka 6 saac waa duhur way intee kuugu dhow internet marka guri xoogaa ii jiro meel 10 daqiiqo ii jirto aan u lugeeyay mase 5 daqiiqo camal ii jirto waa u lugeeyay qorraxdan aad u kulashahay oo aan habeen tagay oo yaraan isnaqaan oo gabar ka shukaansanay marka way hor marka gabar aadid oo saaxiibkana kula socdo gabar kale xaafadda loogu wici jiray moogtahay hadda internetka lagu furaado aad iyo aad marka internetka la furaayo marka kaas ay ugu jiray cidina isma naqaano hal habeen leen batagabo cid muskooda istaagay internetkan furtay soo galiyno sheekadii aan ay qornad leen boobi soo dhaay commentiga ugu horeeyay waxa la yiraahdaa dadka feedback aad u jecel yihiin moogtahay commentiyaasha ugu horeeyay waa la akhriyaa commentiga ugu horeeyay aan akhriyay mid wuxuu soo qoray waxaan nin oo mukayf dhex jif wuxuu soo qoray waxaan markaas soo qorays waxaan noo soo qorto ma weys rafaadka ka martay marka waxna waa dad Soomaalidu waa dad iska noocaas laakiin oona wixii moogtahay haddana aniga markaan wixii ku qoslo waxaan jeclahay inaan dadka ku qoslisid aad iyo aad dhankaas dabcan waxaan la qabsanay nolosha qalafsan adaygan la qabsanay dabcan maanta dhalinyaro badan oo hibada dadka qoslinta leh ayaa wadanka jooga maxay yihiin fursadaha maanta dhalinyaradaas hor yaala oo adigana ku muuqda adna aad kula talin lahayd inay ka faa'iideystaan horta fursado badan way jiraan inkastoo hadda dhalinyarada joogto waxay haystaan platform aad u fiican oo ay ka faa'iideysan karaan haddii Facebook noqoto haddii TikTok noqoto haddii YouTube noqoto haddii Snapchat noqoto haddii Instagram noqoto cid ay maanta marti u yihiin ma jirto ayaga la barayaa marka xoogaas aniga waxaan dhihi karaa fursadaha u bannaan oo ay ka faa'iideysan karaan waxa waaye qolooyinka TV-yada iska leh TV-da waliba ma ahan kuwa warbaahintan iska laakiin midaanka qolooyinkan kale oo keebalada leh keebalada caadiga oo guryaha ku jira leh inay ka faa'iideystaan fursadaas oo dhalinyaradaas ee aad u isticmaalaan ay ka duubtaan waxaan sababtoo dhalinyaradan birito waxaan way ka caajisayeen haddii waayaan cid ka qaadata haddii waayaan way ka caajisayaan haddii ka caajisaan biro way adag tahay in la yiraahdo qofkii kaale ku soo noqo masraxiyo wixii ay sheegi jirtay sheek niyad uma hayo kow labo adduunyo kale oo iska galay saddex energy badnaa waqtigaas ma hayo marka fursad badan inuu heen laga yaabaa marka hadda inay ka faa'iideystaan haddii kale TikTok-gaas ay ka buuxinayaan free-ana lagu daawanaya ayagana wax
macnihii wax badan kama soo galayo laakiin qolada TV-da haddii isku dayaan inay shaqo siiyaan qofka aqoontiisa iyo hal abuurkiisa ay ka faa'iideystaan ayagana faa'iido ugu jirto bulshadeen wax dhow anfacayo meel u dhigmay noqonayaan waa sax kaas marka TV-yada hadda ama warbaahinta waa cidda aad is leedahay marka koowaadba inay fursad u abuuri karaan dhalinyarada soo ma waayahay dhinaca kale halkaas waxaan u malaynayaa dhalinyaro badan inay ka qanceen oo leh hibada dadka qoslinta aan rajaynaya talooyinkaada inay qaadan doonaan waxaan aadaynaa baraha bulshada su'aalo la xiriira ayaan tegaynaa in badan Soomaalida waxaad ku jirtaa dadkii ugu horeeyay ee Facebooka isticmaala ama saxadaas ama aaladaas ku soo biira wax badan ayaad runtii ayaad soo aragtay lana soo kulantay mararka qaar waxa dhacda qof baa aragti soo qoraya aragtidii marka uu soo qoro qofkaasi dad ayaa ka falcelinaya dadkii ka falcelinayay qaarkood waxay sameynayaan weerar shakhsiyadeed inay sameeyaan oo mowduucii ka baxaan qaarkood waxa laga yaabaa qolo ama qofkan shakhsiyadiisa ama aqliyadiisa inay ku xadgudbaan ayaa dhici karta qofkii waxa soo qoray marka mararka qaar wuxuu gaaraa heer uu aragtidii ku tirtiro ama uu qofkii is afgaaraan arrimaha noocaas ah sidee loo maareyn karaa oo qofka maxaa la gudboon wax soo qoray marka uu arrintaas la kulmo kan laftigiisa waxyaabaha qallafsan ee mowduuca ka baxsan qorayana maxaa la gudboon horta arrintaas oo jirtaa oo horta marka anaga waqtiga anaga aan baalkan soo bilaabeynay Soomaalida aad ugu yarayd meesha anaga laftirkeena waa ku inabaqana meesha ma fahantii dad aad nooga horeeyo oo Soomaali ah oo aad u ilbaxay noogu soo horeeyay laftirkeena marmar waxa laga yaabaa inaan inta waxaan la yaabno aan dadka iska lalbino laakiin xogaa waa iscelinayno inaan meesha sii joognaan rabnay oo aan fahanno marka laakiin way jiraan dad badan oo yacni hal abuurkooda aad u fiicnaa sida wax loo qoro aad ugu fiican haddana ka baqaayo waxaa lagu yiraahdaa ama asaas lagu yiraahdaa adiga iska dhaaf wax kale ana waxaan xasuustaa nin dhalinyaro ah aan sheeko ka qaataa dakoor sheeko caadi u soo qoro waa ka qaatay wax soo xigtay saacadii ugu horeeyay odagaan waa tiri sheekada sabab marka anoo ila soo hadlay saaxiib oo tiro yiri waxaan weydiiyey maxaa dhacay maya familka igu qayliyo yiri no waa gartay familka ay ugu qayliyay waxaan ku yiri saas ma aha walkiisaan tagay wuu tira maho magaciisa lan ka tira anaa qoraan sheekada marka aniga iibaada familka aad iyo aad markaas waa xalaal oo ka dhigaysa xalaal ka dhigaysa marka dad badan oo waxa jiraan familka ku dhagaayo familka ku dhagaayo asxaabta ku dhagayso kuwa aqoona ku dhagaayo oo macnaheedu meel kasto farqaas leesta dadka qaar waxa waa buuqaas ay ka helaan marka waxay ku xiran tahay anaga laftarkeena maalin kasta lagu dhagaa waxa jiro kala hadda marmar waxyaabo waxa jira aan ka leexdo oo aan isleeyahay ama familka lagu la soo galaa oo laakiin inta badan maxaa la yiraahdaa inta badan waxaas wax ka daranaa bijiro tusaale qofkan waxbuu soo qoray ama video soo galay wuxuu ka hadlay in sida badarka loo abuuro mafaat sida badarka loo abuuro ka hadlay qof yaqaan oo soo galay aabaha hilibka qali jira leeyahay maxaa badar abuurad ka taqaana waa dhibaato wadadii hore ma ka leexan kartid waa macna يعني marka dhibaato badan iska jirto laakiin qofka asii ku xiran tahay inuu adkaysto oo meesha joogo midan in qofka la aflagaadey kii ku aflagaadey la aflagaadey aniga waa qabaa sababan ku sheega horta qofkan dad qofkaas iska aflagaadeynayo cidoo aflagaadeyba haday ay asiga ku celi lahayd wuxuu dareemi lahaa
in dadku inuu waxa aflagaadeenay ay dad yihiin oo la iska dhicinayo laakiin hadii laga aamuso madax laga dadbad in ka soo hadda aniga xogaaday waxa xoogaa nin weyn ka noqdo cidii ay soo iska dhaafay waagi hore laakiin waagi hore waa u daabici jiray ma fahanti jaraa'id marka waxa dadkan iska ordaayo meel kasta iska caana inta badan dadka cusub sameeya waxaas dadka cusub sameeya oo inay qof iska kablagaadeeyaan oo qofka markuu sanad wax ku jiro ama qofka attention seeker markuu yahay sabab kale oo lagu caaya jirto adiga Ibrahim aana qofka markaa inuu la hadlo ana la hadashid oo rabo oo iska ka maagaya maanta dhan hadal uu ka rabo ama jawaab laga oo iska ka maagaya ana la hadashid kadibna saaxiibo noqotiin dad saas u dhaqmo waa jiraan inkastoo aniga falsafadaas ma aaminsan aan dagaaldan isku barno waa dagaalsanaan adiga wax kale aan soo galo dagaaldan isku barno waa dagaalsanaan nabadda isku barno waa dabada haddaan dagaal isku barno heshiina xataa de waxba isku madarsanayno sababtoo marka hore ay dib dar meesha taal moogtaa marka dagaal iska kama ma sheegin oo darbaaxa qof ku dhacday ma sheegin laakiin darbaaxa adiga toos aan kuugu waday si aan kuugu barto waxa dib daro waa qalad weyn waa waxa soo dib daro laftigeeda waxa jirta dad saaxiibo ah ama la isku bartay inay saaxiibo yihiin mararka qaar ayaa Facebook ku kala aragti duwanaada ama baraha kale ee bulshada sida Twitter-ka oo kale saaxiibada dadka isaga dhow haddii ay kala aragti duwanaadaan sidee bay isku noqdin karaan horta hal mid jirto waxa rabaa in sax loo fahmo wax kala aragti duwanaansho la dhaho ma jiro qof kasto haddii kala aragti duwanaansho jirto ana qofkan waxbuu sheegay maxaa uu la dhagay marka saaxiibtinimada inta ma la gaarin boo qofkan haddoo wax sheego aad diidan tahay adiga inta tagtid qoratid saaxiibta u soo dhigo ma fahanti qofkan waxaan soo qoray saaxiiba sheegaysa saaxiib iska dhaaf qof kale xataa uma furno dood kale laba wax bisa u furan waxa u furan number 1 waxa waaye waxaan waa qalad saanay sax ku yihiin hadda tiraahdo 5 lagu dhuftay 25 maahan intay tahay laga rabaa ilaahu daarto inta ku isku darto 10 waaye dheh adaa laga rabaa laakiin qalad waaye sixina ma aqaani waxaas waa idib darro waaye idib darray noqonaysa mid waqtaas oo qofkii hadoo wax qalday taariikho qalday waa sheegay taariikhda sameeyay saas magacu qalday waa sheegay saas saas meesho goobo qalday waa sheegay saas saas beeno sheegay beenta waa waxaan saas meeynaysaanay ahayn taas waa ku furantaa kala aragti gunaasho maaha waa saxid waay taas saxid waay optionka labaad oo furan waxa waaye qofka inaan ka daba nacmileysid waay waa sax weeye ka daba dhaaday labadaas ma la waay qofkan wuxuu soo qoray waa keeli weyse maahano saxeedii iyo qaladkeedii umayse maahano banaankaas ka maraya qorta ka haysto cidna hadda ka hor waxaad tiri dantaada raaco dantaada ka raacay gabka iyo scenario marka waxa ugu muhiimsan marka waxa waaye saaxiibtinimada laga hadlayaa marka saaxiibtinimo kala fikir duunaansho iyo saaxiibtinimo wax shaqo iyo shaqo isku leh maaha Facebook waxa ku qoran aad as a friend ama saaxiib isu dhow ahaada ama saaxiib kala fog ahaada aad as friend aniga sharciga iyal qofka ani friend iska ana wiliga ismaayne sababtu waxa waaye qofkan waxa uu soo qoray hadaan ka helin hadaan naqdinaya xataa anoo la kaftamaayo oo qofka dib u arag an يعني la kaftama oo ku tuuraa sheekadaas ma keentay oo meeshaas asiga markaas hadana si kala uga soo jawaabo qofka da friendstiin waxaan isku haysiin wax ka badan aad ka dhaxeeyay inay ixtiraamtiin hadaa ixtiraamka ku dubta saaxiibo ma tihiin qofkaas marka waxa ugu weyn waxa waaye aniga waxaan qabaa qofkaas labada qof oo saaxiibada ah saaxiibka hadoo ka daba jaqjaqeeyo oo ka daba qayliyo oo dadka kaaga soo hormaro kor joogto noqonaa aan farana leedahay banaankaas geeyay xagga ka soo qayliyo safkaas kala soo qalo labadana saaxiibo Facebook isku ma jiidi karto waxa duway haddii wax isu sheegayaan intii iswacaan ay isu sheegi karaan laakiin saaxiibo Facebook dhexdiisa isku ereeriyana ciyaal miya way ciyaaliga lahaaya isku xumay jireen haddana saaxiibo waa bir waa la isla socdaa waxa soo ceeb waa gartay waayahay bisle qaybtii dambe ayaan soo gaarnay qaybtan dambe saaxiibada martida ah
waxaan fiiriyaa nasiibkooda iyo waxa u soo baxa inay islahaadaan iyo in kale. waa 5 su'aalood, su'aal kastana 5 qaybood ayay ka kooban tahay. nasiibka say isku tihiin horta? والله أنا نصيبكي ما نحب ما نفعله ضدكي قال لي meelaha dhaxad ku jirta waxay ii soo baxo oo qaba hagaag maanta aan fiirin doonaa marka koowaad waxaan fiirinaynaa kubadda cagta aad u xiisaysa dabcan waa daawataa ciyaartooy horaad ahayd horyaalada Yurub kooxaha aad ka taageerto iyo nasiibka kuu soo baxo ayaan isla eegaynaa waxaad kala doorataa 76 ilaa 80 5 kooxood ku xusan 76 ilaa 80 waxa u dhaxayso 5 miya ha 76 ilaa 80 79 doorat 79 waxaa ku xusan kooxda Jarmalka ka ciyaartay la yiraahdo Bayern Munich kooxdaas ka war waliga ma taageertay maya way horyaalada Yurub kooxdeena number 1 ku ah dabcan Soomaaliyeed waxay taqaanaa markii la joogo Jarmalka kooxa laga taageeraa Talyaaniga kooxa laga taageeraa Spain Ingiriiska saas oo kale anigoo kale niyo hadda Arsenal ku wiiya horta laakiin sida caadiga Talyaaniga Barman taageeri jiray waa dadkii hore tahay ilaa dadka qaado ma fahanti ma dhow waqtiga aniga aan taageeray Barma waxa uu dheelay Cannavaro iyo Baneriva iyo waxa uu dheelay maxalla Buffon iyo waxa uu dheelay Diego Fuster iyo Chiesa iyo maxalla iyo Zinzini iyo Thuram iyo wala shidnay ma fahanti aad iyo aad waxa sidaa kooxdan way adag tahay ma faanta Inter iyo Juve iyo Milan iyo waa ku handadi kartaa sidaa ma dhicin waa la furfurtaa qaarta waa iga Talyaaniga Barma ka taageeri jiray Inter imaado Mourinho iga dibiyay mid waa u gambiyay ma faanta hal Talyaani waxa ka taageero Isbaanishka Isbaanishka hal Real aan waxaan ka taageeraa Champions League markay imaato bis laakiin horyaalkana waa taageeraa waa iska daawadaa laakiin Champions League inta badan because waagi hore inta badan anaga waxaan daawo jirnay Serie A oo Premier League ku bedelnay waqtiga dambe Spanish League isaas loo fursadaas ma jirin bo hadii la daawo kara xataa ku shilna wata adiga hal la leedahay daawane Spanish League ya daawo ya aad waad ku qasbataa kooxdii kaliya marka waqtiga waxa ka hadlayaa hadda Janis ka jiro kala ma jiro marka adigu Talyaani xaqan Spain Inter maxallaha Real Arsenal Ingiriiska Arsenal lambar 1 xilli laakiin waxa jirtay hadeer inkastoo aad uusan xiiso u lahayn horyaalka Faransiiska Ligue 1ka dabcan Soomaalidu badankoodu waxay taageeri jireen kooxda Lyon ka warna dadka soo jirtay maya Lyon waqtigeeda waxa xasuustaa oo waqtiga Janini u dheelayeen waaye saan faahsanahay aad u fiicnaayeen laakiin ayagana laba season wax saas ay ahaayeen oo ma ahayn wax hadda waqti badan waqti la geli karo waayahay nasiibkaas dabcan waan hareer marnay oo waxa ku soo baxday Bayern ku soo baxday adna Arsenal taageertaa taageerayaasha Arsenal dabcan waa ku baran doonaan waayahay waanu ku soo dhaweysan doonaan markan waxaan imaanaynaa nasiibka labaad ama su'aasha labaad waxay noqonaysaa horyaalka dalka waliba heerka koobaad kooxaha hadir ciyaaraya waxaan ka xumahay inaan ku soo darin kooxo badan oo maaragtay dadka xaqooda ku weyn laakiin 5 baan ka soo xulanay markan waxaad kala xulanaysaa bal aan nasiibkaaga eegno 81 ilaa 85 84 dooratay 84 waxa ku xusan kooxda MCC wadatay ama ahaan jirtay Banaadir Telecom ka war MCC ma taageertaa Neo Banaadir waagi hore waagi oo Faransi iyo Saladin Doy iyo muxuu ahaa Hebel Maxamed Nuur iyo Tiro iyo ay u dheeli jireen taageeri jiray waagaas xusuusihii maxaad ka xasuusataa xilliyadaas oo kale kulamadii ugu cajiibsanaa ama waxyaabihii la yaab kala xilligaas sameysay waxa xasuustaa waagaas horta sababta uu taageeri jiray waxay ahayd niman oo waxay ahaayeen oo jabhada Atlanta Madrid Soomaaliya ahaayeen oo kale way dagaalami jireen Faransa joogay waxa joogay muxuu ahaa Saladin Doy oo qarsho u jaban tahay joogay rag badan joogay dhexdoo kale Ilyas joogay Ilasiro joogay oo intuu leeyahay aragti qofka ku dhacay soo noqonay fiyaaraha Soomaaliya hore waxa ka dhili jiray Maax iyo
maax Elias Kulash Elias ku weyn yahay maaxshina lahaa ma qaan waayada dambe meelo ka baxay maadan arkay maaxshina lahaa hore ka dheeli jiray sheekh una mar u dheeli jiray nin kale oo Mukhtaar Cutil oo qatar ahaa sal sano aad qatar u ahaa waa u dheelay sax aad u fiicnaayeen aad u fiicnaa waayahay dabcan MCC waxaan u maleynayaa nasiibkaas oo soo dhow laakiin hadda waqtiga la joogo MCC ma taageertaa mise koox kala taageertaa niyo hadda ayaan naxdaas aan gaadiidka koray ayagana waa ka deganoo gaadiidka laba sabab bis aan korayo nin Bilal ay dhahan iyo nin Cabdi Xasan ay dhahan oo teamka Shingani koobka kula guuleystay kamid ah ayaa gaadiid ku ciyaaraya sidaas marka uu ayagana Bilalkin waa ka tagay ma la yiri Cabdi Xasan kana soo dheelayo ma arkin marka waa isaga haray ayaga hadda laakiin koox la'aan tahay hadda koox la'aan kooxaha horyaalka marka waa u baahan inaan hadayna koox ay qaadeen MCC inaan isaga laba doollar waqta waxaan jeclaan lahaa inaad horseed idigu soo biirto أنا تاجر هرسات هرساتنا وحوي رسان ملينا يو محوها إن حساسي هرسات سمين ما حساسي وكتجه هذا وكتجه كده كبيرة حساسي وكلام كواقعني فرحان حدي قال لكن عياره نمرتون نقاط إبراهيم رستار نوع عياره هو نوع عياره إبراهيم إلياس نوع عياره إبراهيم إلياس واقعنا إبراهيم حدي سؤالي في عنتها إبراهيم أنا كاس خطر واي حتى قرنك وهذا ملينا هذه واي هاي سؤال عشان حكتوا حي قصيصة وحباد آخر ساعة بيسلو waxna waa daawataa luqadaha aad jeceshahay inaad wax ku daawato ama wax ku akhriso iyo nasiibka kugu soo baxa ayaan fiirinaynaa waxaad kala xulanaysaa 86 ilaa 90 86 ilaa 90 Soomaa 90 ka biska dhex 90 ka dooratay 90 ka waxa ku soo baxday luqadda Chinese-ka inaa wax ka war weligaa Chinese horta wax ma ka baratay erey Allah ka dhigay waa ku jeclahay alla ayni ayni alla ayni runaa biyaa bas waa dhiibeysaa iyo waa ku salaamana waxa waa ni haaw alla baad intee ku baratay wax dhowr mar waxaan raadiyaa malaa inta ka xasuusto waxa kaloo jiro nina saaxiibana oo cadad ma cadal laho waraysiga waxa laga qaaday BBC-da ka qaaday barnaamijka uu soo qoray oo leeyahay jeena waxa ku taala maqaayad lagu ooyay dadka murugaysan ay ku ooyaan lacag laga qaadaa waa soo ooyinay murugta ka babaxiso waa soo baxaysaa sax BBC-da waraysata su'aalo la weydiiyo su'aalaha waxa kamid ah afjineeska mutaqaana aday wuxuu yiri ma waa ku ooyi karaa warka daariga inaan ku ooyinay ka soo qaad runtii waa qaybta sidaan ugu talagalay waa ay ku socotaa oo inaan ku nasano su'aalihii hore aan maaragtay uga nasanaan ugu talagalay tan saddexaad ama su'aasha afraad aan dhahay qof waliba wuxuu jecel yahay dad inuu la fariisto adiga ahaan dad noocee ah ayaad jeceshahay inaad la fariisato waxa kooxan halkan marka aan ku soo xusay ilaa 5 kooxood dadka aad markasta adigu aad ku nafisto inaad la fadhiisato la sheekaysato aad iyo aad ugu qanacsan tahay waxaad kala xulanaysaa 91 ilaa 95 94 bislo waxa ku xusan siyaasiyiinta inaad la fadhiisato ama jeclaan lahayd inaad siyaasiyiinta la sheekaysato la shaaxdo la qaraaxaysato bal ka war nasiibkaas maya waxa waa nasiib khasaaro noqona waxa kooxaha kale oo halka ku xusan ama waxa ku xusan bahdii isboortiga oo 90 ah bahda qorayaasha oo 92 ah iyo fanaaniinta oo 93 ah iyo 95 oo qof kasta inaad la fariistaa jeceshahay midkeed malaha isleedahay waxay u dhowdahay 90 u dhowdahay qof kasta inaad laakiin aniga inta badan dadka aan jeclahay inaan la fariisto dhalinyarada oo 25 ka yar 20 ilaa 25 26 inta u dhaxayso dhalinyarada jeclahay inaan la fariisto ala sheekaysto sababta wax kale maahan maskaxdeedu fresh way ayagana markaas dadkaas wiili gabarba maskaxdeedu fresh way kow abateed badan ee adduunyada u hayaan rajo badan ee adduunyada ka leeyihiin waa dad markaa la sheekaysto aad wax ka faa'iideyso dadka kale dad adduunyo ku ciirto way culaasyo adduunyada dhan culaasyo ka sheegayaan mana
mid islaanta ku xanaaqsan oo islaanta dhibtay gabar ninka dhibay mid shaqadii dhibsaday mid adiga adduunyadii ay budad u qaadatay dhinacyada ka kawisay aad u badan tahay mid asiga shakhsi qof asiga shakhsi xumadiisa ma aqaan meel markuu weynaado meel uu aado waaye waxaa jiro inta mar waxaa jirto mugtaa waa yar tahay hadhow wax qabsanaya la isdhaa mugtaa sax waa marka gaartay 30 wilina aadan tilaab hore u qaadin adduunyada eedeysa Soomaaliya adiis ma eedeysa marka mid saqafka ku tagay soo u qorayay oo adduunyadu wax xanaaqsan dadkan laakiin energy hayaan wax badan ay sheeganay hayaan hatta imagination kooda meelaha kala doodi karto maraya waxaan saas warsaas ma heesaas u shaqeysaa hadii kartaa ifant oo yaani rajadooda ka badan waxa da'doodii rajadooda badan marka waxaan jeclahay adigu qof kasta inaad la fariisato laakiin aniga open minded ah cid kasta waa la fariisan karaa oo waxba u markaysiinta xataa waa iska la fariisan karaa ayaga wax kale kuma diidaye waxaan ku diidaa protocolka aadka ah nacba aniga baaritaanka marka laga yimaado xataa yaani hadalkaaga ina yaani boos mudane macni maanta dhan aniga way loo baab waxaas goor dhaweyd waxaan ka dhawaajinay nasiib ahaa luqadaha aad wax ku daawato ama aad ku akhriso waxa ku soo baxay luqadda Chinese sida saxda markaan u hadalno luqadda jecesha inaad wax ku daawato ama ku akhriso niyo sida caadiga ma laba mid waxa aan rabaa inaan si diib u fahmo waxa aan rabaa inaan si diib u fahmo aniga af Soomaaliga aan jeclahay inaan ku akhriyo ku daawado af Soomaaliga soo af Soomaaliga markii laga yimaadana English sababtoo ah luqadda kale aan isleeyahay xoogaa yar ka taqaana Englishka way luqadaha kale xoogaa yar ka sii yaraan ka aqaana marka Englishka aad ma Englishka isleeyahay waa bisla waxa jirta ardayda jaamacadaha dhigta badankood kulliyadaha ay jeclaan lahayn inay galaan ma galaan duruufo jira awoodood waxa laga yaabaa natiijadii laga rabay inay kulliyadaas ku aadaan inay keeni waayaan waxa dhici karta waalidkood inay u ogolaan waayaan oo kulliyad kale ay ku qalqaaliyaan adigu waxyaabo badan oo isbiirsada dhici karta in qofku jaamacadda kulliyadda bachelorka uu ka diyaarin waayo adigu qoladeed ku jirtaa ma kulliyadda rabtay aad baratay mise kulliyad lagu qalqaaliyaa baratay mise kulliyad oo maaragtay bal noo waran aniga oo laftarkeyga kulliyadda aan rabay kulliyadda aan bartay aniga waxaan rabay journalist ama lawyer labadaas mid aan rabay ma sadeen ma dhicin laakiin sababo sax ah marka la i tusay midaan kale anaa sii dalbaday oo yiri balawaayi inta aado maadaama warkay fursad oo waa qiyaasay in teknolojiyada ay soo socoto marka kulliyadda aniga waxaan rabay marka journalista ama maxaa la yiraahdaa waxaan soo arkay inaan ku fiican oo fahmi karo tan u dambaysa waxay qosaysaa marka kulliyadda aad mar uun jeclaan lahayd inaad barato dhowr kuliyadood ayaan dabcan soo xusay bal nasiibkaaga ma is leedahay hal nasiiba horta ku hagaagay ilaa yahdir waana MCC kooxda MCC tan waa tii ugu dambaysay kulliyadda jeclaan lahayd inaad barato 96 ilaa 100 96 ilaa 100 soo ma 99 waxaa ku xusan xanaanada xoolaha ka waran weligaa isku badii kartid xanaanada xoolaha waxaa jiro waagii nin nina waxaa loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha uu diiday moogtaa waa gartay wasiirku xigeenahay ma qaane nin waxa ay qaraabiyihiina waxa ku ureeday muxuu ku diidaa wasiir waaye shilin baa naga cunayso dhan siyaasiga shilin waa cunayso yiri marka inay shilin cunto baro waayahay bisla aad u maasan tahay runtii waqtigaaga qaaliga ah ee soo hurtay waan kaaga mahad celinayaa wada sheekaysigeena dabcan waxaan hubaa inay ka faa'iideysteen dhalinyarada ma aragtay leh hibada dadka qoslinta iyo sidoo kale dhalinyarada kale Soomaaliyeed ee baraha bulshada aragtiyada ku soo gudbiya oo aad talooyin fiican siisay runtii waan hubaa inay ka faa'iideysan doonaan
mar kale waxaan rajaynayaa inaad sidan oo kale iisoo hor fadhiisato oo aan mowduuc kale oo xiiso badan aan ka wada sheekaysano. diyaar waay hadduu ila yiraahdo. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gunaanadaya wada sheekaysiga aniga iyo Bisle Xasan Maxamed. Bisle waa qoraa sidoo kalena arrimaha bulshada ayuu aad runtii uga hadlaa. tan iyo kulan muuqaalkeena dambe aniga iyo Wardi Axmed Cabdulle oo muuqaalka iga duubaya waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.